barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah beesha caalamka oo bayaan ka soo saartay colaadda laascaanood iyagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada in ay ku heshiiyaan xabad joojin degdeg ah oo shuruud la'aan ah haddaba Hargeysa iyo laascaanood xal ma u heli karaan colaadda ka dhex taagan falanqayn ayaanu idinka haynaa Soomaalida Mareykanka oo ka cabanaya qiimaha looga iibiyo baasaboorka Soomaaliga ah oo ay sheegeen in uu ka badan yahay qiimaha baasaboorka 4 baasaboor oo Mareykan wasaaradda arrimaha dibadda ayaan weydiinay sababta nin hal abuur leh oo dalka Kenya dib u warshadeeya maqaarka kalluunka oo uu ka sameeyo dhar iyo kabo kulan wanaagsan dhamaantiinba akhyaarta hawada nagala socotay barnaamijka qubanaha VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay aan ku bilowna wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa si wada jira u cambaareeyay dagaalada ka dhacay laascaanood ee gobolka Sool ee u dhaxeeya Somaliland iyo maamulka Khaatumo qoraal ay soo saareen diblomaasiyiintu waxa ay ugu baaqeen dhammaan dhinacyada in ay ku heshiiyaan xabad joojin degdeg ah oo shuruud la'aan ah wakiilada ayaa madaxda Hargeysa iyo laascaanood ugu baaqay in la joojiyo abaabulka ciidan iyo saadka iyo hubka la siinayo saaxiibada caalamka ayaa sidoo kale sheegay in ay mar kale ku celinayaan muhiimadda ay leedahay in la xaqiijiyo helidda gargaar bani aadanimo oo aan la carqaladayn iyo in gargaarka la gaarsiiyo dadka u baahan sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi haddaba colaadda ka taagan gobolka Sool iyo sida xal loogu heli karo waxaana la falanqeynaya Axmed Maxamed Nuur oo ku sugan dalka Sweden si dhowna ula socda arrimaha Somaliland Axmed marka hore ku soo dhaw barnaamijka qubanaha VOA waan dhowhay waan salaamaya dhamaan fiyodo ugu horeyntii Axmedow maxaad ku qiimeyn kartaa colaadda ka taagan gobolka Sool oo maalmihii dhawaa aad faraha uga sii baxday wallahi colaaddaasi muddooyinkii ugu dambeysay colaad taagan bay ahayd haddana waxay maraysaa xaaladihii ugu dambeeyey inkastoo la odhan karin waa ugu dambeysay hadda laakiin xaaladuhu halkii labada guruuba ay ku taamayeen meelihii ay rabeen ay muddaba ku taamayeen bay hadda joogaan waxaana filanaa inay taladu hadda gacanta ku soo noqon doonto insha allah reer laascaanood waxay leeyihiin dhulkeennii waan haysanaa Hargeysana Muuse Biixi wuxuu ku hanjabay in uu rogaal celin doono maxaa halkaasi kaaga muuqda kulley colaadi markay timaado waxay reebtaa hibato ama maaragtaa xaaladaha markay isbebedelaya dhibtay keenaan hadda waxaan filayaa in xaaladii Somaliland iyo tii bulshada Khaatumo State-ba ay hadda meel dhexe taagan tahay sababta ay u taagan tahayna ciidamada dawladdu waxoogaa waxaad moodaa inay waxoogaa jug ii soo gaadhay muddayna qaadan doontaa sabaabulkoogu halka qolada kalena ay ku dadaalayso inay bal inteeda ay gacanta ku hayso marka xaaladdu hadda meel weli rajaduna fiican tahay ayna adag tahay bay maraysaa waayahay baaqa beesha caalamka ee labada dhinac miyaanu u muuqan mid soo daahay oo xilligan ka soo hormari karay bulshada caalamku muddaba way ku jirtay iyo daneeyaasha bulshada caalamka ee Soomaaliya iyo Somalilandba laakiin talada ay bixinayeen waa ku isku mid ah markii hore iyo taatan inta ay qaban karaan baana intaasa in labada dhanba maanta ayay taagan tahay waxay ku soo muddada badan caalamka sheegayeen in labada dhanba ay ilaaliyaan nabadna ku soo dabaalaan wada hadalna la furo waana talada kaliya ay bulshada caalamku ku taageeri karto arrinkan Soomaaliya dhexdeeda ah iyo dadkan wadaagta ah odayaasha dhaqanka ee dhinacyada labada dhinacba iyaga maxaa kaalina oo uga bannaan arrintan waxaad moodaa labada dhinacba gaar ahaan dhinaca xukuumadda Somaliland talada odayada inta badan gacanta ugu may jirin halka ay qolada kale gacanta ugu jirtay marka hadda taladoodu waa inay noqotaa rool ay maanta ciyaari karaan maadaama inuu markii hore rool isku dheeli tiran lahayn sidaa darteedna waa in laga wada shaqeeyaa midnimo nabad iyo wadajir qolo walba ay meesheeda ku ekaato si loo helo talo hadhow lagu guuleysan karo lagu walaalayn karo bulshadan oo wadaagta dhinaca kale xaaladda Somaliland ee gudaheeda odayadii dadaalada waday ee muddooyinkanba
waxay go'aan ka soo saareen arrimaha doorashooyinka oo waxay yiraahdeen waa in doorashada madaxtinimada iyo midda xisbiyadaba mar qura la wada qabtaa oo la isku sidko sidee arrintaas u aragtaa inta aanan horta gelintaa waxaan odhan lahaa marka dimuqraadiyadda la eego marka la eego wada tashiga dimuqraadiyaddu waxay dhigaysaa markay arrimo noocan oo kala dhacaan ee ay timaado culays xukuumadaha ku dhaca xukuumaddu inay go'aan qaadatay ay maaragtaa ciddii hawshaa lahayd